qisadani waxay ku saabsan tahay hooyo Soomaaliyeed oo wiil ay dhashay uu ka raacay gabar uu jeclaaday hooyadiina markii dambe ay ku sababtay xanuunkii iyo calool xumadii inay caafimaadkeeda qayb kamid ku weydo oo ay maskax ahaan u xanuunsato qisadaas oo aan goobjoog u ahaa walina sii socota oo xaaladdu ay sidii tahay wiilkiina uu la nool yahay uu la jiifto uu la joogo gabadhii uu jeclaa hooyadiina ay sidii u xanuunsan tahay ayaan ka sameeyay maansada soo socota maansada waa hiila saaka balaan culaha maheeda hooyaa tiri waan dhawaaqi si uu hanadkaygii baaqday hayayda ku soo rujuuco waxay tiri hooyo markaad gacan haadiskaaga hablaha u lulaysi dooqa markaad hayin raac sidiisa gashaanti yaroo habsaana halkeeda la seexanaysid halkeed ku ilowday maandhe hooyada ku dhashee ku kaabtay hooyada foolkuu dhibtootay daraaddaa waan habaasay hurdiya raaxaan ka soomay hankaa i canaantay hooyo naftayda i haybinaysa halkaad jirto eed ku raagtay jawaab uma haayo hooyo halaan halka waan ku daalay dabiibna ma haysta hooyo qofkii i arkaa hugayga ka yaabo horar imooda hooyow ii kaalay jaalle hooyow soo eeg dhankayga hooyow janno iyo sacaado taftaydaa laga helaaye hanuunka u kaalay hooyo shalayto anaa ku haayey anaa ku haboo ku dhowray anaa hanad kuugu yeedhay anaa nafta kuu hibeeyey si aad heer sare u gaadho anaa gaajiyo haraadka bartaa u adkaystay hooyo si aad uga hadhin dhigaaga huruufka anaa u qaatay haweenka anaa u faanay anaa idhi hooy heblaayo inanka aan dhalay haweeya hormuud weeyaan libkeena haliyey baan kaa rabaaye haldoor ii noqo wanaagsan habeenku markuu casaado hiraabtiyo duurka maanta ducaan ku hagoogayaaye hooyow noqo ruux wanaagsan hocoonnimo kuuma dooran xaashee ku habaari maayo huqdayduna kuma halleesho hortaadana khayr allow dhig gadaashana hooyo guusha